السلام عليكم دمان asxaabtii qaaliga ku soo dhawaada maanta waxaan idin hayaa cashir yar oo muhiim ah. Casharkaasi wuxuu ku saabsan yahay barnaamijyada dictionary-ga dictionary-yaasha way kala duwan yihiin way kala qiimo badan yihiin. Aniga waxaan isticmaalaa dictionary-yaal aad u badan si aan ereygan rabaan ugu helo. Tusaale ahaan qaamuuskan af Soomaaliga waa mid aad u muhiim u ah. Af Soomaali to af Soomaali waa af Soomaali kugu sii fasira cajiib intee laga helaa. Waxa kaloo isticmaalaa kan English to Somali waa asigana mid aad u taqaanaan. Kan markii aan ku dhifano hal erey aad gelisaa wuxuu soo saaraa ereygii kuu fasiraa ama macnihiisu kuu sheegaa. Maanta waxaan haynaa intaasba mid ka duwan haynaa. Kan waxaad geli doontaa jumlad dhammaystiran wuxuuna kuu saari doonaa luqad alla luqadii aad doonto oo kuu saari doonaa weliba si sax ah. Hadda waxaan ku dhifanaynaa dib u soo noqdo waxaan ku dhifanaynaa Chrome-ka markii aynu ku dhifano waad u jeedaan Chrome-ka ayaan ku dhifanaynaa. Kadaba waxaan aadaynaa Google-kii aadaynaa. Markii isaan ay kugu soo baxdo waxaad ku dhifan doontaa halkaas ayaad ku dhifan doontaa ama halkaas sida aad jeceshayba aan ku tusiyo halkaas aad ku dhifanaysaa. Markii aad halkaas ku dhifato waxaad ka sii dooran doontaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo translator-kaas aad ku dhifan doontaa. Waad ku dhifatay waa turjumaadii waaye halkaas markaad ku dhifato kadaba waxaad dooran doontaa labadii luqadood ee aad rabtay inaad isku beddesho ayaad dooran doontaa. Halkan waa had English intana waa Soomaali. Waxaan rabaa in English aan qoro si toos ah oo Soomaali ugu beddelo. Marka luqado kale oo intaas ka badan uu leeyahay waa kana waxaana luqad ah waxaad u beddeli doontaa midii aad jeceshahay u beddeli kartaa. Marka aniga hadda waxaan rabaa inaan beddelo jumlado badan aan rabaa inaan beddelo. Tusaale ahaan haddii hal tusaale aan idin siiyo waxay noqon doontaa waa sidatan. Iga raali noqda dad ayaa ay soo waceen running waad u jeedaan hadda waa jumlad dhammaystiran. Markii aad jumladii aad qorto waxaad ku dhifanaysaa halkaas aad ku dhifanaysaa ama waa iska xiraysaa oo kaliya. Hadda aniga waa kaas aan ku dhiftay waa oo kuu fasira waa kana si toos waa kuu fasira karaa adil akhriso aniga ku fasiri ma. Ujeedada ugu weyn ee ganacsiga waa in uu faa'iido yeesho ama waa in faa'iido la helo sidii aad jeceshahay badhe waa kaasa. Haddii aan hal jumlado kaleeto aan idin tusiyo ayadana waxay noqon doontaa jumlad yar oo kaleeto adiga aan hadda tijaab ahaan aad ku sameyn doono adigaana intaas in ka badan si tijaabi doonto hadduu Allah raali ka noqdo waa kana. Hadda waa kana haddii adiga aadan luqadda qoritaankeedan aad u fiicnayna waxaa jira farsamooyin kale oo la isticmaalo oo la furto meelaha oo English ku filan private la furtaa si ereyga xoogaa qoraalkiisu ka qaldamo kugu sii saxo. Waa kana aniga hadda waxaan ku sii dhifanayaa halkaan aan ku sii dhifanayaa waa kana si toos marka qoraalka horena akhri. Buyers and sellers are able to get goods and services they require. Haddii la akhriso waa kana iibiyaasha iyo iibsadayaasha waxay awoodaan in ay helaan alaabta iyo adeegga ay u baahan yihiin isla markiiba kadib isdhaafsiga. Markay lacagta isdhaafsadaan kadib ayay si degdeg ku heli doonaan.
tii hore waa tana marka ka faa'iideysta ardayay waa cashir muhiim ah oo aadan ogeynaha intiina badan intii ogeed ma sha Allah waa inta daashay oo ogaatay intiina kale tana waxa waaye hadda ogaada ma sha Allah kala faa'iideysta waa cashir muhiim ah wax walba irida lagu soo dhigay marka waa ma sha Allah waa faa'iido banaanka iska taalo qofkii ka faa'iideysan karo ayaa ka faa'iideysanaa aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashada fiidiyogan fadlan subscribe saar oo lana soco muuqaalada dambe aan idin soo dhigi doono haddii Allah raali ka noqdo waadna mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh